degdeg madaxweyne farmaajo afur muqdisho ugu sameeyay Axmed Madoobe iyo waliba sidoo kale Saciid Cabdullaahi Deni kulan aan laga kala kicin oo ka socdo guriga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo garoonka diyaaradaha waa maxay xogta aadan waxba ka ogeyn oo madaxdan ay ku heshiiyeen muuqaalkan ayaan kugu la wadaagi doonaa haddii aad tahay nabad iyo nolol muuqaalkan amaana ayuu kugu yahay sheergalay aragtidaada nala wadaag daawadayaal haddii ay tahay markuu ugu horeysay kanalkan ee Macaash Media ay tahay aad daawanaysid waxaan ka codsanayaa inaad rukumitid oo subscribe dhaadi muuqaalkan aad daawanaysidna like garay siina sheergalay saaxiibadaada la wadaag aragtidaadana qaybta hoose faalada noogu qor muuqaalkan amaano idin kugu yahay qof kasta oo daawanaya muuqaalkan hagaag aynu ku bilaawno madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isagoona maalmihii u dambeeyay ba uu waday kambeynkiisa ku aadan dib u doorashadiisa uu rajeynayo 15 May inuu dalkan doorashadiisa dib ugu soo laabto balse xaaladan madaxweynaha ayaana markaasi wada abaabultii ugu dambeysay isagoona markii ugu horeysay madaxweynayaasha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe iyo hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo Muqdisho kulan afur wadareed ah ugu sameeyay kulankan ayaa ahaa kulan aan horey loo shaacinin xilli magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha maamul goboleedka oo iyagoo halkan u yimaaday shirkii uu ilaamiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya kulankan albaabada u xiran ayaa labadan madax ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka iyo waliba sidoo kale xaaladda dalkan uu hadda wajihi karo kulankan afur wadareedka ah ayaana markaa kamid ah kulamada uu madaxweynaha uu markaa uga gogol xaarayo dib u doorashadiisa uu ku raadinayo in madaxdan uu kala hadlo arrimo dhowr ah oo ku aadan siyaasadda Soomaaliya balse madaxweyne Farmaajo ayaa kulankan afurka ah ee Muqdisho ugu sameeyay uu ahaa mid si heer sare loo soo agaasimay isagoona uu kaga degan yahay magaalada Muqdisho aaga Marinaayo ayaana naqanaya in madaxdan ay si weyn ay u soo dhaweeyeen kulankan horey ayuu booqasho uga tagay garoonka diyaaradaha aadan cadde ay kaga degnaayeen magaalada Muqdisho balse markana kulan afurkan ayaana naqanaya mid kamid ah kulamadii maamuuska ah ee madaxweynaha uu sameeyay walow xilligii uu madaxweynaha uu ka ahaa dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxdan ay dagaal badan ay la galeen iyagoona dhan walba ay markaa kala dagaalameen balse kulankan ayuu madaxweynaha uu ku casuumay madaxweynayaasha maamul goboleedka Jubbaland iyo Puntland oo markaasi uu ahaa kulan xasaasi ah oo waliba lagu arinsanayay xaaladaha hoose ee doorashada iyo waliba sidoo kale kulanka shirka ay dawladda ilaamisay oo maalintii koowaad oo Khamiista oo qabsoomay walow maalintii Jumcaha iyo maanta oo Sabtiyana waa raade kulankan ayaa maalintii koowaad uu qabsoomay halka maalintii labaadna uu baaqday xilli la ogsoon yahay in uusan markaasi maanta oo Sabtiyana oo shirkaasi uusan qabsoomin xogtan ayaana markaasi xog aan la shaacinin ayaana kulankan uu ka soo baxaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa afur gaar ah markaa Muqdisho ugu sameeyay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxaana la sheegayaa in kulankan uu ahaa mid xasaasi ah oo albaabada markaasi ay u xiran yihiin xogo aan si rasmi ah loo xaqiijinin ayaa sheegaya in madaxweynaha uu kala hadlay arrimo kala duwan oo la xiriira dalkan sida looga samata bixin lahaa xaaladaha uu hadda ku jiro xaaladaha uu madaxweynaha uu kala hadlay madaxweynayaashan ayaa waxaa qayb ka ahaa xasilinta xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya khilaafaadka dawladda iyo federaalka iyo waliba sidoo kale maamul goboleedyada arrimo la xiriira doorashooyinka mustaqbalka iyo si loo markaasi yareeyo sida loo yareyn lahaa xiisadda siyaasadeed ee ka jirto qaar kamid ah gobolada dalka arrimahaas ayaana ugu weynaa uu madaxweynaha uu kala hadlay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland taas oo looga arinsanaya xaaladda hadda markaasi taagan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qayb lixaad leh waxa uu ka qaatay intuu dalka uu maamulayay isku xirka dadka iyo waliba sidoo kale dagaalka qabiilada iyo waxyaabo kala duwan ayuu dalkan ka hakiyay oo dhibaatooyin far badan oo kusoo food lahayd intii uu xilka joogay markana isagoo xilka ka maqan ayuu markaasi madaxda maamul goboleedyada uu kala hadlayay xaaladaha guud iyo waliba sidoo kale xasilinta xaaladaha iyo waliba sidoo kale waxyaabaha yaryar ee ka taagan caasimadda ay Muqdisho
waxaa sidoo kale la sheegayaa in kulankan uusan ku ekeen afurkan oo keliya balse uu sii socdo wadahadallo hoose oo aan markaasi lagu kala kicin. ilaa hadda ma jirto wax war rasmi oo kasoo baxay shakhsiyaadkan kulankan ee ka qayb galay, waxaana la sugayaa bayaan ay si rasmi ah usoo wada saaraan dhinacyadan kala duwan ee shirka markaasi wada qaatay. si kastaba xogtan waa mid markaasi laisla dhexmarayo oo aanan markaasi aan ka imaan ilo rasmi ah, sidoo darteeda waa in markaasi la taxadiraa laguna markaasi qaataa arrinkan oo noqon karta mid ay si weyn ay u garofeeyaan madaxdan iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda Soomaaliya oo ay markaasi ay ku baadigoobayaan sidii ay hore uga socon lahaayeen. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulan iclaamiyay ayaa markaa hal maalin kaliya oo Villa Soomaaliya ka furmay, iyadoona warar hoose aan helaynan ay sheegayaan in kulankan madaxweynayaasha isku fahmi waayeen. kulankan wadajirka ah ee xalay ay wada yeesheen caawa ay wada yeesheen aan raade madaxweynayaasha Jubbaland iyo weliba sidoo kale Puntland iyo kan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa naqanaya mid kamid ah kulamadii gaargaarka ah ee madaxweynaha uu la qaadanayo. inkastoo madaxweyne Farmaajo uusan kulamada markaasi mucaaradka uusan qaybka ka ahayn, haddana waxa uu markaasi ka shaqeynaya in dowladnimada loo hogaansamo, isagoona madaxweynayaashan uu kala hadlayo arrimo badan oo ku aadan in dalkan aan markaasi wax fowda aan la gelin, sidoo kalena uu noqdo mid xasiloon oo dalkan uu hore u socdo. balse madaxweynaha ayaa sidoo kale kulan afurkan uu sameeyay madaxdan uu naqanayo mas'uulkii ugu horeeyay oo markaasi mas'uuliyiintan intii Muqdisho ay yimaadeen marka laga reebo madaxweynaha hadda talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan markaasi qada sharaf ah uu sameeyay. inkastoo kulankaasi uu ahaa mid lagu wada shakiyay ay madaxdu ay ka kala shakiyeen, kadibna mas'uuliyiintan cuntadooda ay iyagu keensadeen hotelka Dikaale ee magaalada Muqdisho. balse kulan casho sharaf ahaa waa markaasi kulan aan raadi kulan markaasi uu iclaamiyay madaxweynaha ayaana uu naqanaya mid si dhow waa markaasi mid si weyn loogu soo abaabulay oo markaasi uu ku tagay gudaha markaasi Villa Soomaaliya madaxdan. balse laakiin xaaladdu ayaa mar qura weli isbedelin, inkastoo la filan karayo maalintii labaad oo la filayay kulankan uusan qabsoomin, haddana waxaa jiro madmadow badan oo loo baahan yahay in madaxda maamul goboleedadan iyo weliba sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud in ay arrinkan ka arrinsadaan ay wax badan ay ka hadlaan. maamul goboleedyada waxa ay ku andacoonayaan in dowladda dhexe ay markaasi ay wax badan oo ay ku lahaayeen ama markaasi dowladnimada ay qaybta ay ku lahaayeen in ay dowladdu iyadoo isleeysiisay, sidoo kalena ay ka tabanayaan waxyaabo kala duwan. xilli madaxweynaha uu sheegay madaxweynaha hadda talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud uu hore u sheegay dal markaasi halkudhig cajiib ah oo la baxay oo ahaa Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la, iyadoona hadalkaas uu calaam su'aal badan uu geliyay. waa hadal aad u wanaagsan, balse laakiin weli booskii loo baahnaa ma uusan gaarsiin madaxweynaha, iyadoona madaxweyneedkiisa ay ka dhiman yihiin wax ka yar 70 maalmood oo la filayo 15 May in doorasho uu gudaha caasimadda u qabso. madaxweyne Farmaajo ayaa u diyaarsan doorasho walba oo dalkan oo ka dhacdo, haddii ay noqon lahayd doorasho qof iyo cod ah, haddii ay noqon lahayd doorasho dadbanba ay markaasi diyaar u yahay. madaxdana uu ka codsanayo in haddii ay noqoto wax walbo in doorasho qof iyo cod ay adag tahay in dalkan ay ka dhacdo, balse laakiin doorashada dadban ee la aadi doono ee teendhada lagu laaban doonana ay noqon doonto in codad badan uu halkaasi uu ka helo. madaxweynaha ayaa kambeynkiisa si hoose u wada, isagoona markaasi uu xoojinayo uuna rajeynayo inuu dalkan dib ugu soo laabto. daawada adigaan maxay kula tahay oo dalkan dib ugu soo laaban kara ayay kula tahay madaxweynaha hadda waa markaasi madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulamo gaargaar ah ula yeelanayo mas'uuliyiintii isaga la dagaashay markii uu xilka uu hayay, walow uu isaga markaasi uu ka qaatay wanaaga oo hadda uu markaasi uu magaaladan aysan madaxdaasi cidle aysan ku dareemin ayuu soo dhaweyn diiran ugu sameeyay gudaha caasimadda Muqdisho. daawada adigaan maxay kula tahay qaybta hoose faalada aragtida nooga reeb haddii aad halkan nala soo gaarteen oo xataa qof qalbi wanaagsan waxaan sinaxda kaaga codsanayaa inaad maartay page-ka soo follow galis muuqaalka la garaysiin shargalay waan raadi YouTube-ka soo subscribe galis muuqaalka la garaysiin shargalay saxibada la wadaag oo ku maasantiin daawashada muuqaalkan mahadsanidin.